Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Soo dhawaada daawadayaal, waa mar kaliya muuqaal kaloo xiise leh kaasoo kaga hadli doono jacaylku ma ficil baa mise waa dareen. Magacaygu waa Axmed Yaasiin, halkanina waa Higgs iyo Hadaf. Kusoo dhawaada daawadayaal muuqaalkeena maanta. Jacaylku keliya maaha dareen, sidoo kale waa ficil. Jacaylku waa dareen iyo cabirid iyo ficil wada socda. Dadka qaar kan hore laga waayaa, qaarna ka dambe. Hase ahaatee waa laba cabirid oo aan kala hadhin. Waa marka koowaad ee jacaylku wuxuu u baahan yahay cabiridda iyo dareenka qalbiga ku jira in afka la soo mariyo oo aad qofkaaga u sheegtaa inaad jeceshahay, waayo si kastoo aad u jeceshahay haddii aadan u sheegin macno badan uma sameynayso. Jacaylku waa sida dhalada baarafuunka oo kale, oo qiimo ma laha haddii aan biif laga siin. Dhalada baarafuunka waxa qiimaha kale u yeelaa ay dhalooyinka kale kaga duwan tahay waa kolka biif laga siiyo oo udgoon wanaagsan ay leedahay. Jacaylkuna waa sidaas oo kale, oo haddii qalbiga la iskaga haysto ciddii qalbiga lagu hayay loona sheegin, jacaylkaasi waxbaa ka dhiman. Saxaabi baa nebiga u yimid, naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee, markaasuu ku yidhi hebel baan jecelahay. Nebigu naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee wuxuu ku yidhi ma u sheegtay? Markaasuu saxaabigu yidhi may rasuulkii allow. Nebigu wuxuu ku yidhi nebigu naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee wuxuu ku yidhi orodoo u sheeg. Waxaad moodaa in nebigu leeyahay haddii aad qof jeceshahay waa inaad u sheegtaa. Haddaba jacaylku sheegis buu u baahan yahay, haddana u sheegis keli ah oon ficil la socon macno badan ma laha. Ka waran haddii lamaanahaaga intaad ku leedahay waan ku jecelahay oo aanu ka arag naxariis, waxay ka dhigan tahay in aanay sheegashada waan ku jecelahay aanay wax badan ka jirin. Jacaylku keliya maaha badnida sheegashadiisa ee waa dareemidda neecawdiisa. Neecawdana waxaa lagu dareemaa nuglaanta aad lamaanahaaga u nugushahay, naxariista aad u muujiso xaaladaha murugo. Haddaba jacaylka dareen ahaan iyo ficil ahaanba u muuji. Daawade waad ku mahadsantahay haddii aad nala joogtay ilaa dhammaadka muuqaalka like saar. Sidoo kale haddii aad nagu cusub tahay subscribe channelka oo ka mid noqo baaweynta nagu xidhan. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.